السلام aadka u qiimo badan waxaa ka mid ah inuu yiri nabigeena calayhi salaatu wasalaam qofkii markuu galabaystana saddex ka akhriyo waaga markuu u baryana saddex ka akhriyo ducadan ah bismi illaahi alladii laa yadurru maca ismihi shay'un fi al-ardi walaa fi as-samaa'i wa huwa samii'ul caliim waa ducada codka gaaban ducada ninkii wuxuu yiri subaxii saddex ka akhriyo nabigeena calayhi salaatu wasalaam casarkii markuu gaarana saddex ka akhriyo lam yadurruhu shay bur nabiga calayhi salaatu wasalaam wax dhibi ma laha waa duco yar oo kooban waaga markuu kuu bari inaad saddex ka akhriso gabalka markuu kuu dhacana aad saddex ka akhriso nabigeena wuxuu calayhi salaatu wasalaam lam yadurruhu shay sanadka xadiidka ducadan kusoo arooray ninkii taabiciga markuu akhrinayay wuxuu arkay ardadiisa nin ka mid ahoo fiirinayo sheekhana xoogaa shalal buu qabay gacan baa shalal kaga dhacay yacni ardayga wuxuu la yarar cajabsan yahay ducada ninkii akhrista waxaa lam yadurruhu shay sheekhana cudur iyo xanuun baa soo gaaray muxuu asaga iskugu daaweyn waay sheekhii marka wuu fahmay ardaygii iyo qasadkiisa markaasaa wuxuu yiri lacallaka ma laga yaabaa inaad aniga ila yaaban tahay ood gacantayda iyo ducada aan sheegaya isku kaa waafaqi laada haa buu yiri adigaa la rabay inaad ku ducaysato lam yadurruhu shay markaasaa wuxuu yiri maalin aan hilmaamay baa xanuunkan i asiibay buu yiri xanuunka horta waa qadar waa wax dhici karo oo wix ilaahay kuu qoray waad mari laakiin nabigeena calayhi salaatu wasalaam shay uu sheegay qadarka wax ka hortegi kara waxaa jira adducaa nabi cala salam shay hadduu uun shay qadar ka hormari karo adducaa baa ka hortegi buru nabiga calayhi salaatu wasalaam ayadii oo maqduuro ku ahayd baa la arkaa ilahay inuu kaaga difaaco limaada culimadu waxay leeyihin yamxu allahu maa yashaau wayahbitu ilahay wuxuu doonu tiri wuxuu doonana wuu sug rabbi subxaanahu wa tacaala ducadaas marka ninkii casarkiina saddex ka akhriya subaxiina saddex ka akhriya lam yadurruhu shay waxaa ka mid a ducooyinka nabigeena ka sugan aadka u qiimo badan radiitu billahi rabban wa bilislaami diinan wa bimuxamedin sal slam nabiyan qofka inuu akhriso saddex casarkiina uu saddex ka akhriyo subaxiina uu saddex ka akhriyo nabigu wuxuu yiri ninkii salaadiina saddex ka akhriyo ducada casarkiina saddex ka akhristo kaana xaqan lilaahi an yurdiyahu yowma alqiyaama ilaahay dushiisa waxaa xaq ku ah inuu raalli geliyo maalinta qiyaamo oo la kala cararayo arrintu ay culus tahay ilaahay baa ku raali gelin ducada ninkii akhriyo nabigeena calayhi salaatu wasalaam waa ducooyinka suuban ee in la badiyo ay aadka u baahan tahay waxaa ka mid a ducooyinka nabigeena ka sugnaaday calayhi salaatu wasalaam ninkii casarkii gaaro oo maaragtay niska dambe intuu gaaray maaragtay intuu gaaray acuudu bikalimaati illahi taamaati min shari maa khalaq ninkii akhristo buri saddex jeer casarkii markuu gaaro meel markuu dego yidhaahdo saddex jeer acuudu bikalimaati illahi taamaati min shari maa khalaq maalintaas intuu meeshaa ka guuray wax dhibi mala buru nabiga calayhi salaatu wasalaam ducooyinka wanaagsan nabigeena ka sugnaaday oo loo baahan yahay inaan dhaqan ka dhigana waxaa ka mid ah inuu yiri nabigeena calayhi salaatu wasalaam ninkii markuu gurigiisa qofka markuu ka baxay rag iyo dumarba gurigooda qofka markuu ka baxay hadduu saddex jeer uu yiraa tawakaltu cala allahi laa xawla walaa quwata ila billah saddex jeer tawakaltu cala allahi laa xawla walaa quwata ila billah ilahay baan tala saartay laa xawla walaa quwata illa wax xeelada iyo wax quwana ila billahi bimacuunati illahi mawd saddex jeer gurigiisa qofka marka hadduu akhristo shaydaankii baa shaydaanka la hadlay jaa-isana waa la siin maxaa yeele jaa-isooyinka la siinaya waxaa ka mid a in la leeyahay hudiita wa kufiita wa wuqiita wa tanaxa canhu shaydaan waxaa la leeyahay hudiita waa lagu hanuuniyey wa kufiita waa lagu kaafiyey wa wuqiita waa lagu ilaaliyey wa tanaxa canhu shaydaan shaydaanna waa ka dheeraan waa saddex jeer gurigaada markaad ka baxayso inaad tidhahdo bismi illaah tawakaltu cala allah laa xawla walaa quwata ila billah intaa maxay kaa dhimi waa saddex jeer yaa waxaa lagu leeyahay hudiita wa wuqiita wa kufiita wa tanaxa canhu shaydaan shaydaan baa shaydaan kale wuxuu u leeyahay see kuugu sugnaaday qof inaad wax u dhinto la hanuuniyey la ilaaliyey la xifdiyey waa saddex jeer oo tiraahda wey waa ducooyinka wanaagsan ee loo baahan yahay inaan barana guryaheena markaan ka baxayno inaan akhrisano waxaa ka mid a ducooyinka nabigeena ka sugnaaday calayhi salaatu wasalaam ducada loo yaqaano sayid listikfaar nabigeenaasaa ku magacaabay istikfaartoo dhan bay sayid u tahay bur cal salam sayid maxay tahay allahuma anta rabbi laa ilaaha ilaa anta khalaqtanii wa ana cabduka wa ana calaa cahdika wawacdika ma stadactu saa inaad tirahdo acuudu bika min shari maa sanactu abuu'u laka binicmataka calaya وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت نبينا وحور عليه الصلاة والسلام سيد الاستغفار بالله دعاء من قالها من النهار موقنا بها نينكي مالينكي أخرستو أسغو يقينسا أو فمات من يومه مالينتي سادنتو
قبل أن يمسي أنتم عصر كي جارين فهو من أهل الجنة بالنبي عليه الصلاة والسلام أرورت بعد آخر شيء إسلام مالنت بين نفتك هاب حضي أظن عصر كي جارين أسقوا يقين سنبون كل واقعي ويكمل هاي من أهل الجنة النبي عليه الصلاة والسلام ومن قالها ننكت له الدعاء من الليل هبينك أمرك قبل كدعاء وهو موقن أسقوا يقين سن بها دعاء أو فمات أنت قبل أن يصبح أنتم وابريسنين فهو من أهل الجنة والعسلام رواه البخاري والدعاء وسيد الاستغفار نينكي نصورة أخرستو مالين تاجر ومن أهل الجنة أسوا يقين سن نينكي مخرب كنتو أخرس سيدا كوجير هبينكاس أنتم واجبرين ومن أهل الجنة والنبي عليه الصلاة والسلام والدعوين كان لو باهية إن لقى فائدة والدعوين اسكفضوا الحفظين كرتوي أو واحد اللي حفظين كرو أو اسكفضوا دوي وحكم من الدعوين كان ربضتك إنay برتان أو إن كل رقمان دعاء الكرب مركي كربو يمرك علايس كسو وجهه دعاء لو فيدو مرء علايس كسو وجهين الملا حال قفك من آدم كأدونك اسك مشقة أدونك ودن باب اسك مشقة اسك رفاضة مرك مرء مشقة لا أنت ما جرتو مرك علايس يا كربو أي كسو وجهه دعوين كان لا آخر استئ لو فيدو نبي قال نحور عليه السلام ابن عباس وحو نبي كسو عليه الصلاة والسلام نوري نبي وحوءها عليه الصلاة والسلام كان يقول عند الكرب كربا مركي قبط النبي وحو جري لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم متفق عليه ساس ديجنا عسل ها لا إله الله معبود وعقل وعابد مجري إلا الله الله موجود العظيم الله وين حليم يدلقات كبلا لا إله معبود مجري إلا الله الله موجود رب العرش العظيم عرش وين ربي اسكله لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم ساسو ديدنا عصر مر والباء كربا هي عليس أي كو إماتو نبينا عليه السلام وأنا حديث متفق وين ودعاء داس أي كو سارورتين دعوينك وناكسن way badan yihiin ducooyinka nabigeena ka sugnaaday adintii ku ajab gelisa akhriso ducooyin laakiin waxa jira si khaas ah inaan looga tagin u baahan kuwii baan rabnaa qaar kamida inaan wax ka sheegno waxa kamida ducooyinka ma'thuurada ah qiimaha badan nabigeena ka sugnaaday ducaa Yunus alayhi salaam nabi allah Yunus markii lagu riday baddi ducadii uu ku ducaystay oo maashi xawayaanka uu liqanaa sallam ila nabigeena wuxuu ri alayhi salaatu wasalaam da'watu nun نونك وعلى لوجو بحي وحوتك يا وحي اللي قيوي ادعى بها مرك كدعستي وهو في بطن الحوت محوري لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين تسوري مركم ملايق وين أولقي يا وحور لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين نبي النحور عليه السلام لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له لا حديث صحيح الترمذي بكسوغين دعاء سيدا دعاء نبي نحور عليه السلام قف مسلم أكو ما دعايستو إلا إلهي باك أجيب النبي عليه السلام والله أقبله حكادمي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ودعوينك سوء أروري قيمها بدن إلا الربو عرب كذا إناد برتو محايل النبي عليه السلام دعوينك سوء أروري وحكم ده دعاء النبي نؤبر أمنا عائشة رضي الله عنها أمنا عائشة نذكرها النبي عليه السلام تذكر أبو جعلاء والنبي نقول يا عائشة وحد كد عيستها دعوين كان حاطر هذا اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم ساده إله يو ربي يو وحنكو ويديستي خير أمانتي سكيسة سودك دقايو أي كيسة ديبو دعيبا كان أوجه يميت كان أوجين با وحن كان من قال شر أمانتي كيسة سودك دقايو أي كيسة ديبو دعيبا أنت كان أوجه يميت كان أوجين با إله يو وحنكو ويديساني خير waxa uu ku weydiistay adoonkaada iyo nabigaada Muhammad sallallahu alayhi wasallam duca jaamica nabi maxamed wuxuu weydiisto dhan oo khayr ah baan ilaahu anna ku weydiistay nabigeena wad garanaysaan qofka ugu yaqaan Allah buu ahaa marka nabi maxamed wuxuu ku weydiistay oo khayr ah baan ilaahu anigana ku weydiistay waa duca jaamica oo aad u qiimo badan way waxaan ka waxay dhihi jirtay Aisha oo nabigeena uu baro yiraahdo waxaad helo tiraahdaa waxaan ka nabadgeli wixii shar ah أو كان نبتقال النبي هذا محمد عليه الصلاة والسلام أدونك هذه ها إله وحن كويدي سني جنة إيه وحي اللي قد دواده ها وحي الجنة إيه وحي اللي قد دواده أو قول إيه عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك أن تجعل كل قضاء تقضيه لخيره إله وحن كويدي سني
wax walba oo qada ahood ii xukmisa oo khayr inuu khayr ilaah isiiyo